jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Sacuudiga ayaa la kulmay safiirka dalka Turkiga u fadhiya dalka Sacuudiga sida warka nooga soo diray wariyaheena Cabdiqaadir Qayska. guddiga jaaliyadda Soomaaliyeed ee magaalada Riyaad ee dalka Sacuudiga ayaa la kulmay safiirka dalka Turkiga u fadhiya dalka Sacuudiga mudane Yunis Demirer isla markaana dhambaal tacsiyo ku qotomay dadkii dhawaan ku geeriyooday dalka Turkiga iyo muwaadinkii kale ee Turkiga ahaa ee dhawaan lagu dilay magaalada Muqdisho u diray ra'iisul wasaaraha dalka Turkiga isla markaana u marsiyay safiirka dalka Turkiga u fadhiya dalka Sacuudiga mudane Yunis Demirer taasoo ka dhacday xarunta safaaradda ee magaalada Riyaad ee caasimada dalka boqortooyada Sacuudiga. gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee magaalada Riyaad oo hogaaminaya guddiga jaaliyadda oo la hadlay telefishinka caalamiga Somsat kulankaasi kadib ayaa xusin sidoo kale kulanka safiirka ay la yeesheen looga hadlay sidii loo xoojin lahaa cilaaqaadka iyo xiriirka ka dhaxeeya labada jaaliyadood ee Turkiga iyo waliba Soomaalida isla markaana Turkiga u joogtayn lahaa caawimaadda uu siiyo Soomaaliya. gudoomiyaha ayaa waxa uu yiri waxaan la kulnay maanta anigoo gudoomiyaha jaaliyadda Sacuudiga safiirka u fadhiya Turkiga dalka Sacuudi Carabiya iyo xubno jaaliyadda Riyaad ka tirsan guddiga fulinta. waxaan kala kulnay safiirka oo la kulanay inaan u gudbino tacsi aan kaga wadno magaca shacabka Soomaaliyeed iyo magaca jaaliyadda ku nool Sacuudiga oo ugu tacsiyeynayno 300 qof oo ku dhintay magaalada Soomaaliya dalka Turkiga iyo qofkii lagu dilay magaalada Muqdisho ee Turkiga ahaa ayaan ugu tagnay inaan tacsiyeyno. waxaan u dirnay warqad oo aan u dirnay tacsiya ra'iisul wasaaraha dalka Turkiga mudane Rajab Erdogan wuxuuna naga aqbalay wuxuuna naga ballan qaaday inuu gaarsiinayo. waxaa kaloo aan ka wada hadalnay sidii calaaqaadka safiirkii hore aan uga lahayn jaaliyadda iyo safaaradda Turkiga. wuxuuna yiri albaabka inuu noo furan yahay oo mar kasta aan imaan karno oo calaaqaad fiican oo nala yeelan doono sidii safiirkii hore. safiirkan waxaa la yiraahdaa Yunis Demirer waa nin cusub wuxuu joogaa muddo 3 bilood ah. safiirka hore calaaqaad wanaagsan baan lahayn oo markii xaflado ay qabaan iyo markii munaasabooyin ay qabaan waan ka qayb gali jirnay. markaan 2 bilood joognana maaragtay ka wada qaadasho wuxuu naga ballan qaaday inuu maaragtay xaq badan naga caawin doono. safiirkan wuxuu yiri albaabku waa furan yahay asagana gacmo fiican oo nagu soo dhaway gacmo furan oo nagu soo dhaway. ujeedadiisu ugu tacsiil markay dhamaatay fikrada kala qaadasho iyo calaaqaadka dhaxeeya Turkiga iyo Soomaaliya sidii wanaagsan wuxuu anagana aan shacabkana raali ugu yahay aan u sheegnay. asagana wuxuu Turkiga waxa ka go'an inuu gacan weyn ka geysan doono dalka Soomaaliya. anagana waxaan dhahnay inaan maaragtay aan safaaradda anagana sidii aan markasta aan calaaqaad haddaba dhanka kale safiirka Turkiga u fadhiya dalka Sacuudiga mudane Yunis Demirer ayaa waxa uu xusay in dawladda Turkiga caawimaad ay la garab taagan tahay walaalahooda Soomaaliyeed. Cabdiqaadir Qayska TV-ga caalamiga Somsat Jeddah Sacuudiga. iyadoo laga soo